hadda gobolkan aan ka imaado gabar waxaa jirta hadda oo 6 jir ah oo aabaheed kufsaday yaan hadda keeska dabagal ku haynaa marka waad dareemi kartaa arrimaha hadda kufsiga sida uurka aad bay usoo farabateen iyo gudniinka waayo hadda waqti waxaa lagu jiraa fursad la haysto oo iskoolada ay xiran yihiin waagii horena iskoolada waxay u ahaan jireen caawinaad gabdhaha ilaan waqtigii fursadda la helo iskoolada lasoo xiro bis keli ayaa ma aragtaa gabdhaha gudniinka iyo wax lagu sameyn jiray laakiin hadda koronagan fursad weyn oo ballaaran ayuu siiyey bulshada waa tahay Sacdiyo Xuseen waxaad sheegtay in gabar 6 jir ah oo aad sheegtay inuu aabaheed kufsaday qaab noocee uu kufsaday ma aabaheed run ah ها aabaheed run waaye iyadoo doorka joogto ayuu kufsaday kadibna markii oo gabadha dhiig istaagi waayay ayaa xarunta caafimaad la geeyay iyadii hooyadeedii aabaheedii isla socdaan waxay dhaheen geed ayaa duray iyadoo kaadi u socoto mar haddana waxay dhaheen iyadoo geed saaran ayaa ma aragtaa geedkii soo duray kadib meesha markii la tagay gabadhay markii horta waqtiga iyada way dhiig bixisay zaid marka waxay noqotay in ma aragtaa la badbaadiyo iyada kadib markii la weydiiyay saan ku yeel aabahay dhahday aabahay markii dhahday oo la fahmay ayagana maadaama ay soo qoreen ay dhaheen geed ayaa duray arinta booliska gaartay kadib markii meesha la booqday oo la fiiriyay meesha ay dhaheen geedku ka duray dhiig ma lahan laakiin meesha iyada sheegtana dhiig baa ku dadsan oo ay dhahday waa lagu kufsaday taas maxay cadeynaysaa marka laakiin wali lama xaqiijin mise wax xaqiiqo ah hadda keeska waa dabagal baa lagu hayaa laakiin horta runta waxaa waaye geed adoo saaran haddii uu ku duro geed dhiigga intee lagu arki karaa geedku kasoo bilaabanaya soomaa ilaa hoos u daadanaya laakiin meesha dhiigga ku daatay waa meesha gabadha sheegtay weyne kale cabaar ay isu jiraan marka waad dareemi kartaa sidee ku dhacda geedka korkiisa inay ku dhiig bixin ee meeshaas ku dhiig baxdo taasna waxaa un cadeyn karaa mise xaqiijin karaa markii keeska uu cadaado kulli cadaalad waa la sameyn doona ha markaas kadib ayaan taas kaaga hadli doonaa waqti kale insha Allah taala marka adinka ka urur ahaan ma jiraan xiriir idinka dhaxeeya ururkiina iyo dawladda horta laba shay waan sameynaa marna toos dawladda haddii arrimo oo xadgudub dhanka sharciga uu imaado ilaa sharciga anaga waxa kama qaban karno markaas dawladdan kaashanaa laakiin urur ahaan anaga waxaan jecelnahay inta badan in aan bulshada wacyi gelino si ay dadkeena u fahmaan xuquuqdooda iyo arrimahan gudniinka iyo kufsiga iyo waxan kale waxyaabaha kale saameynta ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay waxan ku di in ay kala fahmaan si ma aragtaa hadhow damba sharciga iyo waxan kale ay uga badbaadaan eeg nafsadooda ay u ilaaliyaan bedelkii la soo xirxiri lahaa mar walba xabsi ma wanaagsana marka qofka xabsiga bedelka lala tiigsan lahaa waxaa si haboon qofka asoo ma aragtaa xuquuqdiisa wax ka fahmay oo arrimaha kale oo ma aragtaa dhibaato u keenayna iska ilaaliyo taas noo sii wanaagsan anaga marka inta badan waxaan isku daynaa in aan dadka wax ka radhicino